عاوضة هدي لنا صدين وهو وين محمد عبيد دوي كدعة لوني والله يا كشاعر الله جهاد الحقيقة مستن على كتاب حيد كديدن qabiilkan Bootena ayaa waa qabiilkii xildhibaan Xabiib oo ah ninkii ku xirtay Muuse Biixi Somaliland oo Hargeysa ku xiray waa xildhibaankii xasaanada lahaa shacabka tirada badan maalin gudaheeda intaas milyan shacab ku taageertay ayuu xabsi ku hay Muuse Biixi waxa dagaal ahayn habeeraatay malahan waxaas u qeynaya oo wax luunta ka gooday waa qabiilka ama jufada ka soo jeedo xildhibaanka waxayna dhaar ku mareen hadduu soo deen 24 saac in Muuse Biixi isku arki doono dagaal Hargeysa lama ala wareegi doono waa qabiil asagoo ka dhashay welina waxa uu jeedaa in Xabiib wali xiran yahay oo wax dhig loo dhigin Muuse Biixi qofka hormaada xabsiga ayuu yaala Soomaaliya muuqaalka meel gaarsiiyay adigu admaasan waa qabiilka niga adaga si dhaarna adaabka naxaya dhaarta ka socoto hubka tirada badan ee heesan ishikooyinka daba jeexayda iyo hubiyaasha waxyaabasa isabana heesan waa intaas qof muuqaal soo duubay waxay fariin hawada u mariyay Muuse Biixi in arrinkaas ka dheeraado oo xildhibaanka soo daay bilaa shuruud haddii 4 soo deeyna wuxuu isku arki doonaa jawaab culus oo asagana ay xilka xayb doona oo xabada bilaawno ilaa Hargeysa oo qabto doona oo meel walba la siga maadana oo markaana xildhibaanka xasaanad ayuu lahaa nin wuxuu ahaa taageer aad tirba lahaa waa ogaad maalada markuu meel Boorame isugu maadeen dadkii ugu badnaa abid ayaa isku soo baxay oo wali wax taasaaxta madaxda mas'uuliyad bixinta xasaanad ayuu lahaa taageer ayuu lahaa Muuse Biixi wuxuu dareemay ninka hadduu sii joogo in oo xilkiisa dhibaato iyo qaraac gali doono oo Muuse Biixi qofkii oo marka hor imaado waa dictatori qofkaas oo arkay in ninkan oo ku yahay caqabad liinta iyo xabsiga ayuu galiyaa laakiin qabiilka xildhibaanka ayaana wacad ku maray dhaarna hawada u marsiiyay Muuse Biixi in hadduu soo diin 24 saac asaga jawaab culus arki doonaan oo xabad ay bilaabo doonaan waa dhaartii ugu dambeysay xildhibaanka qabiilkiisa ee hawada u mariyaan Muuse qofka uu arko in siyaasadiisa ee maaragtay gali karin ama mucaarad ku yahay ama islaha ninkan xilka bariigo kula qabsan doona habeerada markaas ayaa u dambeeysa oo xabsi u galiya oo qof walba oo arko in lid ku yahay asaga amarkiis diidayo ama ka baawar sareeya xabsi ayuu galiya hada xildhibaankan xasaanad ayuu leeyahay awood ayuu leeyahay oo dad badan ayuu shacabada ayaa taageeray Muuse Biixi wuxuu dareemay ninka hadduu sii joogo in xilka uu kala wareegi karo oo xilka Muuse Biixi laga tuuri karo سادرتيد أيو حبس دلقوسي إلا مدة بلا أيو حريني هاي أبيراتي إنه لنتي إنه لما يقال قبيل كين هل كان هو بحيث وقعتين وهو بدنيا السبنو أيو دارنايا داره هود برنايا وشيء Muuse Biixi هاي عدو سودين حلبان كاسي إن دبعت بدن أكلت هالكاسي ودي بنقطع عضونه حلبان هو هاي حسن الله هاي حلبان أنت حلبان إنه أنت سحرنا هذا شروع مالكم تعال أو بارمان كمدا بارمان كرجيس وتعال iyo kumid xildhibaankaas waa xildhibaan xasaanad leh waa xildhibaan dadkan hal mar shucuurtooda qaatay oo Muuse Biixi in laga soo horjeedo ku baaqay in Muuse Biixi xilka laga tuur ku baaqay Muuse ninkan wuxuu dareemay ninkan sii joogo ama xabsi aaxirin ninkan in xilka ka qaadi karo oo dadka ku kici karo qofka dadka ku cinaya hawada ayuu ku cunaya oo xiraa Muuse marka waa dictatori ana hore u sheegay Muuse xabad kaliya shaqo kala maro hadda la saacnadu ogeedeen xabadii dabad ka galiyeen hubkii iyo beebooyinkii waa ka furteen marka waa qada faro ka qaaday ninkaani gacanta inuu qof ula tago oo xabad ku ridamehe habeeraatay asxaan iyo sheeko wax ku banahan xildhibaanka qabiilkiisa oo markaan fariin hawada u mariyay sheegana inay dagaalami doonaan ayagoo carada ka muuqata iyo xanaaq qabada la yaaban yahay oo shucuurtoodii aad u muujinaa in xildhibaanka dii la soo deyn 24 saac ee magaalada holc doonto iyo goob doonto oo Muuse filada ugu tagi doono oo agaas ku dili doono xildhibaanka waa xildhibaan xasaanad leh inuu intaas sii xiraado waa qalad waa xildhibaan shacab tiro badan aad u jecel yihiin oo waa wada maalintii u wadeen Boorame wuxuu ka dhigay shaqare muuqaalkaasi qabiilka xildhibaan Xabiib oo aad iyo aad ayuu careysan fariin hawo u diray Muuse Biixi